قروحو هرمرا شقلا هرمود كي أجر لي مركي تعا هجنوجو هادان هوشيتنا هجو هجنوجو هادان هوشيتنا هجو hawshani maanta uun may bilaaban muddo 3 toddobaad ka hor bay soo bilaabantay mudday soo socotay marka maanta waxaynu ku jirnaa gabagabaynteedii iyo final gareysteedii hadii Ilaahay idmo waxa ogtiin in dhawaan aynu daahfurnay qorshaha istiraatiijiga ee hay'adda shaqaalaha dawladda qorshaha 5 sano ee hay'adda shaqaalaha dawladda qorshahaasi wuxuu ka kooban yahay pillars iyo natiijooyin loo baahan yahay in 5 sano kadib la gaaro haddaan dariiqooyin yaryar oo ka sukeeya iyo qorshayaal ka sukeeya la sameeysanna in hiraalka la gaadha runtii way nagu adkaanaysa in muhiim weyn tahay muhiim inoo tahay in la soo saaro work plan-ki sanadkan aynu ku shaqayn lahayn waxayna faa'iido weyn u tahay in qaybuhu ay shaqeeyaan si qaybuhu shaqeeyaan waxaan iyo departmentada hay'adda shaqaalaha waxay u baahan yihiin work plan bay u baahan yihiin sanadkan waxaan jecelnahay anagu soo dhaweynaa in work plan-ka hay'adda shaqaaluhu aan la falgalno waxaan la falgali karanaa markaan aragna agaasimo waaxeedkiyo qorshihiisa haysta oo nala xisaabtamaya toos noola xisaabtamaya oranaya bishan waxaan ay qorsheysnayd maxay idin ku jira BCU sababaan anagu carcarna ma jirto way qaybtana way qaybta shaqeynaysa waa facilitate gareena waa fududeena haday performance tahay haday planning monitoring tahay registration la soo qabanayo marka waxaan jeclaan lahaa in waaxuhu ay work plan-kan sanadka la sii daadajiyo maandale laga sii dhigo wax walba ay haysto gidaarka ku dhajisto deetana la isku dabagalo anaguna kaasaan la falgalna hadii la ka dhigo waan ballan qaadanaa in la falgalno wax walba aan la shaqeyno awoodayada ay sii yaraato monitoring iyo registration hadii la sameeyo tripku dhawaato hay'adda shaqaalaha sameysay qaybta eminigi planning-ka sameeynay hadii la ka dhigo runtii waa kulan shaqo aynu iskugu nimid shaqadaasi oo aynu ku wanaajinayno sidii aynu kor ugu qaadi lahayn hay'adda shaqaalaha qorshihii ay dhigatay iyo istiraatiijiyadeedii marka waxaan jeclaan lahaa in dhammaanteen aan ka wada qayb qaadano fikirku qof kasta uu ku jira shaqaaluhuna mar walba sida uu midaysan yahay ee uu midda u yahay ee uu gudoomiyaheenu sheegay runtii inaynu uga qayb qaadano istiraatiijiyadeena sanad kasta waxaynu dejin doonaa sidan oo kale istiraatiijiyado cusub oo aynu ku shaqayn doono sanadka insha Allah waxaan rajaynayaa wax fiican oo qaranka iyo ummadaba qiimo u sameeya waxaynu sameynay istiraatiijiyad qorshe hawlqabad oo 5 sano ah oo soo saaray isla waafaqnay ansixinay wax dhammaystiran ma jirto adduunka inagoo aan nin waliba plan-kiisa ku shaqeynayaabuu geeridu ka soo hormaraysa laakiin isku day wanaagsan oo inaynu qorshe 5 sano soo saaro ayaynu soo saaraynu sameynay oo dhan oo ujeedooyinkiisii leh halka la higsanayay maxsuulkii iyo wixii wax ka soo baxayay ay cad yihiin halka loo maray ay cad yihiin talaabooyinka la qaaday ay cad yihiin waxa maanta marka aynu ku nasanaynaa oo aynu ku shaqeynaynaa sanadkan 2020 waxaynu qabanaynaa haddaynu hay'addii shaqaalaha nahay haddaynu hay'addii u xil saarayd tababarka tayeynta kor u qaadista daryeelka xanaanaynta shaqaale weynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland maadaama aynu xil saaray oo ah cududda iyo aqliga lagu horumarinayo qaranka maxaa inoo qorshaysan maxaynu tababar siinaynaa halkaynu maraynaa inagoo waarignimadi hore ka baranayno raacayna gooliska iyo strategic objectiveska aynu qorshaysanay halkaynu maraynaa marka ahmiyadeenu waa taas waxaan ku dardaarayaa aniguna waa idila joogaya ilaa aynu dhammaynayno idinka tagi maayo waa idila jooga dhammaanteena waa wada joogaynaa qof waliba kaalintiisa waa participatory qof waliba xogtiisa iyo aragtidiisa iyo ku darsigiisa waa inuu ku darsadaa waayo waxaynu ku shaqeynaynay oo waxaynu performance-keena shaqadeena ku qiimeynay sanadku markuu dhamaado saddexdii biloodna mar isdul taagayno ma waliba ku soconaa istiraatiijiyadeena 5 sano ahayd ma ku soconaa work plan-keeni qorshaheena hawlqabadka sanadka halkaynu wax ka qiyaasaynaa oo halkan maanta aynu sameynayno waxaan oran lahaa in aqliga iyo maskaxda iyo laabta iyo tamarta iyo fikirka baan isugu geyno inaynu soo saarno qorshe hawlqabad oo sanadkana
2020 oo fiican oo u cuntamayo oo ka jawaabaya baahida iyo waxaynu u diyaarsanay istaraatiijigeenu ka turjumayay aad baa u mahadsantihiin qaran wuxuu